كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشركii 16aad qaybtii koobaad ee barnaamijkeenii barbaarinta ubadka waxaaynu dhammaystiri doonaa maanta oo casharka ugu dambeeya aynu ka qaadan doonaa qaybtii markaa u samafalka labada waalid inta markaa ay dhintaan waxyaabaha loo sameynayo. insha allahu tacaala maanta waxaynu kasoo qaadan doonaa 3 qodob. qodobka ugu horeeya waxa weeye uu ka warrami doonaa maadaama labadii waalid ay dhinteen waxyaabaha qofka markaa looga baahan yahay waxyaabo badan ka soo sheegnay. waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah haddii markaa labadii waalid yacni deyn lagu leeyahay oo iyagoo markaa deyn mid ka mida markaa uu dhinto isagoo markaa lagu leeyahay deyntaas markaa ay ku xidhnayd in markaa deyntii laga bixiyo oo sidaas markaa waa maxay qofkii deyntii looga bixiyo. xadiiska markaa uu warinayo markaa Abi Hurayra ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay yacni qofka mu'minka ah ama nafta markaa mu'minka ku jirta yacni waa mid markaa deyntaas lagu xidhay oo ay saaran tahay markaa ilaa qofku waa maxay dee deyntii laga gudayo. markale nebigu waxa uu lahaa qofka shahiidka ah ee markaa dagaalka ku dhinta dembi kasta markaa waa laga dhaafaya ila deyn yacni deyntaa saaran qofka iyo culayska mooyaane. markaa deynta qofka hadduu ku dhinto waa culays markaa saaran. markaa qofka waxaa loo baahan yahay inuu ogaado oo uu raadiyo haddii markaa labadiisa waalid ama mid ka mid a markaa isagoo deyn lagu leeyahay markaa uu dhintay uu deyntii ka bixiyo. markaa ka kale waxa weeye isaguna qodobka labaad ah haddii waalidka markaa ay wax ku nadireen ama shay markaa ay ballan ku qaadeen ilaahay badan ay kula galeen shayga inay oofinayaan oo shaygu markaa cibaado yahay in shayga iyagana waa maxay iyagoo shayga ilaahay ballantii kula jira ay dhintaan isagana markaa in laga sameeyo oo xaq ilaahay ah. marka waxyaabaha markaa waxaa ka mid ah haddii qofkii uu soom ku nadiray ama uu xaj ku nadiray iyo waxyaabaha markaa la midka ah oo dhan in markaa waa maxay waalidka iyagana maxay ballanta ilaahay ay la galeen markaa la oofiyo. waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska markaa ibnu cabaas uu warinayo ayaa nebiga ninbaa waxa uu ku yidhi nebiga ilaahay hooyadii markaa waxay dhimatay iyadoo markaa lagu leeyahay yacni bil soonkeed markaa lagu leeyahay. markaa soomkaas waa soomkii caadiga ahaa ka nadarka uu qofku ku nadarana waa la mid marka oo isagoo waa maxay wuxuu noqonaya markaa soom nadar. marka wuxuu yidhi soomkaa bishaasaa lagu lahaa marka saasay ku dhimatay ee ma ka gudaa waa max bishii markaa ma ka sooma. kadib markaa nebigu waxa uu ku yidhi waxaad ka warantaa hooyada marka haddii dee deyn lagu leeyso markaa deyntaa kamaad bixiseen. haa buu yidhi markaa nabiga ilaahayo. markaa nebigu waxa uu ku yidhi fa daynullaahi axaqu an yuqdaa yacni deynta ilaahay qofka waa maxay saaran ayaa ka mudan oo ka xaq leh deynta markaa qofka ay makhluuqa ku lahaayeen. yacni qofkii waa dhintay tusaale ahaan qof basharana oo waa maxay makhluuqaad ka mid a deyn buu ku lahaa ilaahayna waa maxay markaa deyn buu ku lahaa oo xaqdee fara badan qofka maxay la dhintay isagoo saka lagu leeyahay waa maxay soom lagu leeyahay sahan xaj uu ku nadray oo kale. markaa nebigu waxa uu leeyahay fa daynullaahi axaqu an yuqdaa yacni sida qofku inagu inta badan waxaa laga yaabaa inaynu markuu qofku dhinto aynu markaba waa maxay u degdegno yani qofka ayaa wuxuu haystay qofka ayaa wuxuu hayay qofka ayaa maxay wax ka qaatay iyo markaa wax ku lahaa waxyaabaha dadka basharka dhexdooda ka dhaxeeya ayaynu aada ugu degdegnaa. laakiin qofku waxaa loo baahan yahay in markaba la isweydiiyo war qofkan talo qofka dhintay xaq ilaahay ku lahaa muxuu ka tegay. yani qofkan soon meel lagu lahaa qofkan xaj meel lagu lahaa uu ku nadiray qofkan waa maxay waxyaabo kale acmaal badan oo ilaahay markaa ballan uu kula galay miyay jireen markaa qofkan yani xaqa ilaahay qofku markasta in isagu soo horeysiiyo ayaa markaa loo baahan yahay. kadib markaa la isweydiiyo waxyaabihii markaa dadka dhexdooda markaa ay ku lahaayeen ama isagu markaa uu ku lahaa la ogaado. markaa nebigu waa kaale waxa fadaynullaahi axaqu an yuqdaa. qodobka markaa u dambeeya
waxa uu markaa noqonayaa in markaa lasoo booqdo labada waalid mid ka mid a markaa u dhinto, yacni qabrigiisa markaa in lasoo booqdo ayaa isaguna markaa ugu dambeeya. nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska markaa Abu Hurayra uu welinay waxa uu leeyahay waxa uu markaa nebigu soo booqday qabrigii markaa hooyadii, waxa markaa uu ku yaalay markaa Abwaa, meesha markaa Maka iyo Madiina u dhaxaysay. markaa nebigu marka uu qabrigii hooyadiisa u dul istaagay wuu ooyey. markaa dadkii markaa hareerihiisa joogan iyaguna markaa way la ooyeen. markaa nebigu waxa uu ilaahay markaa ka idin weydiistay ilaahay markaa inuu hooyadii markaa u dembi dhaafo. ilaahay markaa waa maxay? nebigu waxa uu lahaa ilaahay markaa idankiisa waa maxay? ilaahay uu weydiistay marka ilaahay waa maxay? uma idmin, waayo hooyadii markaa iyadoo gaalaha marka ayay dhimatay. markaa iyadoo dhimatay ilaahay inuu u dembi dhaafo oo istiqbaaldu marka ilaahay u weydiiyey. marka ilaahay taa maxay uma ogolaanin. laakiin nebigu waa maxay? waxa uu yidhi waxa markaa ilaahay ii ogolaaday inaan markaa soo booqdo qabrigeeda. xadiiska waxa markaa u dambeysay nebigu sii raaciyey idinkuna maxay qubuurta waa maxay soo booqda. waxay markaa idin xasuusinaysaa mawdka iyo markaa geerida ayaa markaa idin xasuusinaysaa. xadiiskii kale markaa waxa uu ahaa nebigu uu lahaa yacni markii hore waxaan idinka reebay oo markaa aan idiin diiday inaad markaa soo booqataan markaa qabriyada marka dadka dhintay meesha ay ku aasan yihiin inaad soo booqataan baan idiin diiday. hadda waa maxay? soo booqda hadda, waayo waxay markaa xasuusinaysaa aakhiro. marka xadiiskaa waxaynu ka faa'iidaynaa markaa 3 arrimoodoo waxa weeye qodobka ugu horeeya horta qofku hadduu dee gaalnimo ku dhinto in markaa ilaahay dembi dhaafa maxay markaa aan laga aqbalaynin. markaa ka labaad waxaynu ka faa'iidaysanaynaa qofku hadday waalidiintiisa marka aan iyagoo islaam ahayn marka ay dhintaan inuu soo booqan karo. qodobka saddexaad ee muhiimkaasna waxa weeye in dadkaa dhintay ee waa maxay naga inagu horreeyay meesha ay ku aasan yihiin lasoo booqdo oo loo tago in markaa iyagana waa maxay ay lagu xasuusanayo yacni qofku dhimashada, qofku isagana maxaa kale inuu u dambeyn doonto iyo waa maxay iyo maalinta aakhire markaa dambaysa ayaa lagu xasuusanaya. marka inagu waxaa laga yaabaa inta badan siyaabo badan inay dadkeena qabriyada ay markaa u tagaan, siyaabo kaloo markaa shirkiya oo qalado markaa aan sax ahayn baa laga yaabaa inay u tagaan xoolo kusoo gowracaan qofka dhintay ama qabriga iska tagaan. laakiin qofku waxa loo baahan yahay waa maxay? qabriga looguma talagelin in qof dhintay xoolo lagu dulqalqalo waa maxay lasoo bariyo oo kaalmo lasoo weydiisto dembi dhaaf lasoo weydiiste. qabriyada waxa loogu tala qof markuu tegayo inuu geerida kusoo xasuusto, inuu aakhiro kusoo xasuusto ayaa markaa qabriyada markaa loo tegi karaa. si kale wax markaa looma soo ziyaaran karo, markaa looma tegi karo markaa sida waxyaabaha shirkiga qofka uu ku dhacayo oo kale aan loo ogoleyn. marka qodobka ugu dambeeya waxa uu noqonayaa waalidka markaa iyagan lasoo booqdo. marka dadku inta badan waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan oo inta badan maskaxdooda aad waxa ugu jirta waalidka waxa loo samafalaya ama samafalka loo sameynaya intay nool yihiin markaa. laakiin waxa aynu ka hadalnay waa maxay? marka ay dhintaan ilaa intaasoo qodob markaa oo la samayn karo. insha allahu tacaala qeybtii samafalka waalidka waxa aynu markaa ka diyaarinay ilaa 19. qeybta hore waxaynu ka soo waranay waalidku marka intay nool yihiin waxyaabaha loo sameynayo ilaa 12 qodob baynu soo sheegnay. qeybta dambe oo 10ka maanta ugu dambeeyana waxa aynu iyadana aynu ka waranay ilaa 9 waxyaabood oo markaa loo sameynayo waalidku marka ay dhintaan. sidoo kale halkaa waxa inoogu dhammaaday barnaamijkeennii barbaarinta ubadka qeybtiisii koowaad. barnaamijka waxaynu u qeybnay 2 qaybood. qeybta hore waxay ahayd markaa diyaarinta ubadka, siyaaha marka ubadka loo diyaarinayo. qeybta koowaad ee muddooyinka badan soo wadnay 10kaasay inoogu eeg tahay. insha allahu tacaala waa maxay? 10ka dambe waxaynu bilaabi doonaa qeybta dambe ee barnaamijka iyadana ah siyaabaha marka ubadka loo dhiso. waxaan kaloo rabaa inaan baraarujiyo iyadana waxa laga yaabaa dad badan inay isweydiinayeen yacni samafalka waalidka waa maxay laga hadlayo iyo barbaarinta ubadka programka magaciisa iyo maxaa ka dhaxaya marka, ama maxaa samafalka waalidka maxaa keenay in laga hadlo. waxaynu markaa leenahay iyadana maadaama aynu ubad barbaarinayno waa in horna markaa in jiil fiican iyo ubax wanaagsan iyo qurux badan ay noo soo baxaan. waxyaabaha lagu barbaarin karo ay ugu wanaagsan waxaa ka mid ah dee in la baro samafalka labada waalid. waxa aynu ka sheekeynayno oo dhan haddii la iska daayo
oo ubadkeenna aynu barno yacni labada waalid xaqa ay ku leeyihiin oo qodobada fadaha badan aynu u sheegno marka ay nool yihiin waxyaabaha looga baahan yahay haddii waalidka waxyaabaha looga baahan yahay marka lama arkayoba ilmo akhlaaqdiisu xun tahay ilmo markaa maxay loo taag waayo ilmo waxay markaa waxyaaba badan ay ku adkaadaan waalidkaan adeecayn waxaasoo dhan meesha way ka baxayaan laakiin haddii ubadkiiba haddaanay macnihii waalidkaba aanay fahansanayn oo samafalkii waalidkaba aanay garanayn oo qofku hadduu waalidka u samafalo waxa uu ka heliya adduun iyo aakhiro aanu garanayn oo qofku haddii uu waalidka maxay caasiyo oo maxay aanu adeecin dhibaatooyinka iyo ciqaabta uu kala kulmay aanu garanayn dee sidee markaa maxay u korayaa sidee markaa waalidka ugu samafalayaa sidee waalidka markaa u adeecayaa sidaa darteed ayaynu barnaamijka qaybtan usoo dhexgelinay samafalka markaa labada waalid intaasaynu kusoo koobaynaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaaynu ka baryana weydiisanaynaa inuu markaa labadeena waalid markaa u dembi dhaafo aakhirana markaa uu ku casumo jannooyinkiisa markaa sarsare barnaamijka halkaasuu nooga socon doonaa innagana insha allahu tacaala waxaa ilaahay ka baryaynaa inuu acmaasheenna saalixa markaa inaga aqbalo wanaag badana markaa inagaga abaaliyo wallahu subxaanahu watacaala aclaa waaclam wa ilayhi marjicu walma'aab